بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. qof walba oo inaga mid ah waxa uu mar maskaxdiisa ku soo dhacday oo isweydiiyay su'aal ah: ma jiraan xayawaano naarta gali doona ama ma jiraan xayawaano jannada gali doona? maxay kala yihiin shanta xayawaan ee Allah subxaanahu wa ta'aala jannada galin doono? ma xayawaano kooban baa mise waa dhammaan xayawaanada noocooda? waxaa muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa 5 nooc oo xayawaanada ka mid ah oo jannada la gali doonto ahlul jannaha ee daawasho wacan. balse intaan ka hor bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad noo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. waxaa jiraan dhowr nooc oo ka mid ah xayawaanada kuwaas uu Allah subxaanahu wa ta'aala u doortay in ay jannada galaan. waana 5 nooc oo xayawaanada ka mid ah, waxaana ka mid ah kuwa uu Allah subxaanahu wa ta'aala u doortay in ay jannada dhexdooda cunto ugu noqdaan ahlul jannaha sida shimbiraha oo kale. waxaana lagu sheegay quraanka kariinka dhexdiisa, wuxuuna Allah subxaanahu wa ta'aala suuratul waaqica dhexdeeda ku yidhi: walaxmi dayrin mimmaa yashtahuun. waxaa kaloo ka mid ah kuwa uu nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiis ku sheegay in ay jannada ku nool yihiin sida dibigii uu Allah subxaanahu wa ta'aala ahlul jannaha ugu diyaariyay jannada dhexdeeda, kaasoo loo gowrici doono sida ku soo aroortay xadiiskii Tawbaan, kaasoo xadiis dheer dhexdiisa ku sheegay in uu nin yahuudi ahaa u yimid rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu kadibna u weydiiyey: yaa waaye dadka ugu horeeya ee jannada gali doona? markaas buu nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay: waxaa ugu horeyn doona fuqarada muhaajiriinta. markaas buu yahuudigii weydiiyey: maxaa lagu soo dhaweyn doonaa markii ay galaan jannada oo ay ku faakihaysan doonaan? wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay: ziyaadatu kabdi nuun, taasoo loola jeedo nibiriga beerkiisa meesha ugu macaan, yacni nibiriga beerkiisa halka ugu macaan ayaa lagu soo dhaweyn doonaa. markaas buu yahuudigii weydiiyey kadibna maxay cuni doonaan? wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay: waxaa loo gowrici doonaa dibigii jannada, kaasoo jannada hareeraheeda ka daaqi jiray. sidoo kale wuxuu sheegay in xayawaanada jannada ay ka mid yihiin ariga. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مراحي الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. أبي هريرة الله كرر لنقضي وحو النبي صلى الله عليه وسلم كوريي إنو يري: كنت كذا حروين كأريغا داريركا أما عيدنا كترترا waxay ka mid yihiin xayawaanada jannada. sidoo kale geelku wuxuu ka mid yahay xayawaanada jannada, waxaana daliil u ah xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa: عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخضومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة ب700 ناقة كلها مخضومة. أبي مسعود الأنصاري أيا وحا لغا وريي إن يري: نبا نبي صلى الله عليه وسلم كeenay hal geela oo xarig ku xiran. markaas buu yiri: alla dartii ayaan u baxsaday. wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku yiri: maalinka qiyaamaha waxaad bedelkeeda heli doontaa 700 oo halaad oo kulligood ay xarga ku xiran yihiin. waxaana la qiyaasaa in ulajeedku uu ahaa in uu leeyahay ajarka 700 oo halaad. waxaa kaloo la ixtimaalaa in uu jannada dhexdeeda ku helayo 700 oo halaad oo wada socda. wallahu aclam. noocyada kale ee xayawaanada jannada waxaa ka mid ah fardaha, waxaana u daliil ah xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasallam kaasoo ahaa in nin uu nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyey oo uu ku yidhi: yaa rasuulallah, jannada farda ma ku jiraan?
wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam ugu jawaabay haddii uu alle subxaanahu wa tacaala jannada ku geliyo waxaad leedahay faras ka samaysan yaaquudka oo leh 2 garbood oo meeshaad doonto jannada dhexdeeda kugula duuli doona. waxaana muhiim ah in aan ogaano in shimbiraha iyo fardaha iyo geelka ku jira jannada aysan la mid ahayn kuwa adduunyada oo ay wadaagaan magaca oo keliya, sifooyinkoodana alle subxaanahu wa tacaala mooye ma jirto cid kale oo garanaysa, balse waxaan ognahay in ay yihiin kuwo aad u qurux badan oo loo dhammaystiray. maxaa yeelay waxay ka mid yihiin nimcooyinka jannada, kuwaasoo allah subxaanahu wa tacaala jannada dhexdeeda ugu diyaariyey awliyadiisa, kuwaas oo nabiga sallallahu calayhi wasallam inoo tilmaamay. sidoo kale wuxuu allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhexdiisa ku xusay tiro xayawaano ah oo gaar ah, kuwaasoo la sheegay in ay naf ahaantoodu geli doonaan jannada. waxaana tusaale u ah aygii asxaabul kahfi iyo hudhudkii nebi sulaymaan calayhi salaam iyo hashii nebi saalax calayhi salaam iyo sacii banu israa'iil iyo wankii lagu furtay nebi ismaaciil calayhi salaam iyo kuwo kale, balse qowlkaasu sunnada iyo qur-aankaba daliil kuma laha. wallaahu aclam. waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka heshay fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto, like-na saarto oo la sii wadaagta asxaabtaada. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin in aad noo saarto subscribe-ka una sheergarayso walaalahaaga kale. tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.